kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada rugta TV oo kala socotaan alaba barnaamij xiiso badan kuna soo dhawaada waraysi aad u xiiso badan oo bixiyay fanaanka aadka u da'deer una codka macaan Iidla Yare oo qof walba uu garanayo isla markaana ahaa fanaan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Nairobi oo bixiyay toddobaadkan waraysi aad u xiiso badan runtii oo dhinac walba in ka soo jiidan doona bal kusoo dhawaada waraysigaas oo aad uga heli doontaan hana iloobina channelkana subscribe saartaan muuqaalkana like saartaan si aad ula socotaan barnaamijyada dambe oo xiiso badan oo kuwan lamid nolosha been lagama sheego aniga waxaan wax kasoo bilaabay hoos kasoo bilaabay madiinaan kusoo barbaaray hooyadiina waxay ka shaqayn jirtay iskool yiraahdo baarbe waxay u gudi jirtay waxaan la yiraahdaa bajiyaha iyo jalaata qoriga iyo isku dhuuq baa la dhahay iyo dhangalow iyo adiga nacbubur waxaas ga jirtay marka aan wax ma barano maadaama hooyo aan baash hooyadii caawin jiray maadaama wiil aan wahay ma garat sababtoo ah ardayda markii la soo deeyo oo yaani galaaskii ay soo baxaan oo cabitaani iyo bur iyo sambuusis iyo bajiyaha isku qabsan bislaska yani hooyadii kaliya ma xamili karto waa inaan dhowr qayb aan qaabilaa hooyada dhowr qayb marka kuwaan lacagta aan ka qaadaa hooyada qoys lacagta qaaday waata marka Iidle adiga iskuul ma dhigan jirin miyaa markaas maya iskuul ma dhigan nolosha waa baranka taamugta markii yani iskoolkii iyo dharkii iyo wixii oo la dabar karo ma shaqayn jirno wuxuu ahaa dawladii hore ka tirsanaa marka ma shaqayno guri joogtuska ah hooyadana nabiila jirtay kadibna waa wadankii xoogo waa burburay hooyo marka dambe waxay shaqo bilowday xaafadda Madiino loo qaarkood dadka dhigaysanaa way yaqaaneen abagado meeshaas waxay korin jirtay laamiga geeskiisa ee shaaha korin jirtay baabuurta BLka meesha ka rataan waaye shaaha kafeega meeshaas ay u gudi jirtay adiga macaamiil badan oo fiican ay leedahay marka laakiin waxaa dhacday marka dambe dagaal dhacay oo laba qabiil meesha ku daashay hooyadii meesha ku dhimatay xabada ku dhacday oo loo wadin saxay ana ka soo noqono Iidle sheekadaasi qoyska marka aan ka nimaadno waxa jirtay inaad hadda ka hor boosaaso aad ka shaqayn jirtay sidaad ku tagtay meeshaas nooga war horta waasha macaan horta waxa step loo qaadaa hay anaga hooyadan markay dhimatay waxa waaye waan yani waa ka xogo baashi noloshii caradii noqotay gabdhii la dhashay waxay maadaama is gabar yihiin waxaan go'aansaday nolosha in aniga aan dabro aabihiyo tabcan oo xanuunsan aan ka tagay oo yani xaaladiisa aad u liidato oo aabihii dhabarkiga dharba xir aabo dadka hooyo aabba Allah kaaga dhigo lacag shilna maan haysan maanta waxaa dhacday cid oo bixisay oo gaalkacyo socotan raacay waagaas waxaa raaci jiray baabuurta oo intereega oo mooska laga yaabo bil wadada ku jiraysa sababtoo bira jabayso birtaas waxaa ugu leeyahay xamar loo laabanaa aldoona ma garata waa tahay haye kugu dhacay qadar ilaahay waaba soo mugid ilaahay inaa qarisidna ma aha inaa faanto ma aha faanka ma fiicin anaga war kugu daalina gaalkacyaan tagay marka waxa waaye meeshii ku ekaayeen gaalkacyaa marka dambe adiga meel oo haye hawleega maxaa bacmado waxa ku wata labada shay ma garata haye mana ogolaas waadadii xageedna u socotay oo sahankaagu ahaa saakii boosaaso ahaa inaa aado maalinka dambe aan iska soo lugeeyey shaqo meel dhowr bibitan tagay maqaayaal badan tagay waxaan shaqo ka bilaabay haddaad taqaanid shaleen bardacad markaad hawo ka socoto maqaayad waxaa la yiraahdo ubax lo aan ka shaqaynay waxaan ahay ministra ahay iyo alaabta wasaqdan qaadi jiray xilligaasi waa xilli fog bay ahayd saan filayo maxay ku siin jireen lacaga ma xasuusato habeenkii waxaa la siinaya 5,000 shilin 5,000 qaadan jiray hadduu bakeerijo lacagtaada goontahay ma garatay waa tahay imisaad ka shaqaynaysay maxaad se ka heshay markii dambe taas ugu sii shaqayno waan ka tagay hadda dono oo reegaa kacay way yaqaaneen kolley biibata ka soo jeeda ninkii iskala ay waxa yiri kaale aan ila shaqay meesha shaqo ka bilaabay aduu dhintan waa cafsiye habeenkii markii lacagta la qaadanayo laazim waa inuu jilib darbaax inuu ku rufto ma garatay haye oo muxuu ku dilayaa marka maanta dhow fiirna qaadata galaysid iyo qofka baash oo yani inta wax u keentid oo yani qofkii xanaaqay korog fiirna ama kula hadlaayo shaqada dhamaatay xusul iyo jilib ku qoran ma garatay ilaa dadkii moogtahay dadkii hadaad aniga 96 baxay waxaan aaday Nairobi waxiyo yimay yariisa oo 7 jir ah oo baarashayaal ah boosaaso buuxeen oo caseeya ahayeen xamar ka tageen marka nin maanta nolosha aan soo arkin wuxuu ku leeyahay waa weyneed ku leeyahay no kartida waa loo dhashaa waxa loo dhashaa waay ku dilay ma ka tagtay mise shaqo kale aad magaaladii ka raadsatay gaalkacyo mise ma dilkeen waa iska qabay lacagtii waa urursanay maamo fiican oo aad u fiican oo aan u dhiibin jiray lacagta iyada iyo hayjirtay aan u jirtay marka dambe lacag dhinaata waxay u tiri waarada baxayo anaa kugu daray baawarta dheerka maalinka dambe waaradka dhakada ka fuulay garabaan aan ka cunteynay maqrabadii adiga habeenimo waxaan galnay boosaaso galnay meel wax laga bilaabo ma lahan marka waxaa jirto meelo oo maalintii jaad lagu gado habeenkiina ilaa iyo duurkii oo wax laga keenayo jaadkii imaanaya cid ma fadhiisto marka meeshaas buushkaas fasaxanaa hadhow markaan soo kacana waxa waaye masaajida iska dhow iska tegaysaa waja dhaqane boorka iska jafanaysaa laakiin waxaan ku sheegay waalmacan hurdada lagu helo sariirta
tan darbi jiifka ah tan darbi jiifka aad u macaan badan hurdo macaan dabiiciya ka imanayso marka aan sheekada meesha kaga sii waday boosaasan tagay ogo muddo dhoma marka dambe boqolka buushan tagay wixii reer xamar iyo wixii oo wixii isku jira adii markaas dadkii dhexda galay markaas waxaa isku dhahay koonfur isku dhahay ma garad waa gartay marka boosaaso waxaad iskaga degtay magaalada dhexdeeda iskaga degtay cid kama aadan garanayn qof kama aadan garanayn magaalada unbaad iskaga dhex degtay cidna kama garanayn magaalada cidna qofna kama gaseen xagad seexatay habeenkii koowaad habeen koowaad oo gaariga aan ka degay waxaan seexday meel buusha oo jaad lagu gado oo kabaradii yeelan ana waxaa sawaxankii gaarigii baabuurtii qaalidan kusoo kacaa subaxii waxaan aadaa shaqrays wallaahi ma iloowi doono inaan saaxiibanahay hadduu nool yahan waxaan dhihi lahaa waa kii allah ku barakeeyo adii ilmaaga allah idiin barakeeyo maqaayad waxaa jirto uu ka shaqaynayo kuwa raashin kari oo ahaa marka waxaa jiro cunto loo tikniko haye maxaa laga wadaa waa adoo kala maqaayada galaayo baasti hiliba dalbeen waxyaalaha ka taabane waa qashinka lagu daraa bariisa na cunaayo iyo jikin qashinka lagu daraa waxaas bacinta ugu aruuriyo aan anigii iyo wiilo badan soomaali xamar ka wada imaaday aan wada cuni jirnay ma garad ile haddaan si kale u dhigno waa cuntada hambada la dhaho haa laakiin anaga waxaan naqaan tiknika aan naqaan tikniko waa tahay haye ilaa imisaad ku noqday cuntadaas lafan waa ku jira lafan waan ka buuxan wallahi koo tombri kadib baad shaqo heshay kadib aan shaqo helay maamo aan u tagay qaarlaas iyadana oo suuqa weyne marfishka weyne hilibki iyo waxaba lagu gado kadib goormaad fanaan rasmiya noqotay oo aad maslax soo istaagtay oo heeso laguu qorayo aad fanaan noqotay aan leeyahay oon qaado oo ii sameeyey abwaan da'yar oo liyaa shaciib cabdinuur laxankan uu saaray ijini shumi muusigan uu tumay xasan xujeer cajami nairobi baa markaa joog heestii kuugu horreysay oo aad abwaan kuu sameeyey maad xasuusan kartaa iidli xiisaha kalgacal miduu igu xidho ixanibay darteede xididada jirkiyo xiskiyo wadnaa way xambaarsato xuban qaali iyo qalbigee xado xaggeedan jira marka ile adiga fanka heerkii aad rabtay ma ka gaadhay mase weli waxbaa kuu dhiman wallaahi aniga waxa waaye fanka awalo biillen ka raadina biilkii waa ka hela magal ilmaha iskoolkoodiiyo marka waad imisaad ka samaysaa ilow wax lacag intee leeg baad ka samaysaa fanka habeenkan shaqeeyo kale adigu waxaan qaataa 100,000 adigu waa $1 kutaalo downtown ku taalo waxaa ku yaalay kalaab la yidhaha duldur oo muusig laga tumaa ku yaalay kalaabkaas aan iska aadi jiray aniga iyo qadro silimanbo waxaa ahayn dad oo fanku ordaya fanrays ahayn ashinak salaama marka dambe waxaa noqo inaan samaacada qaado noqo samaacadaan qaadi jiray habeenkii dambe waxaa dhacday inay faanintii boonkood sheraton aa laga wacay wax heesaa la waayey habeenkii aniga iyo kaloo jiiro loo hadda xamar joogo aan meeshii aan ka heesnay markaasaa ninka etoobiyaanka oo baarkii qamriga galay intuu ii imaadiyo boqol bi wejiga ii dhiji intuu candhuf saa umarsa igu dhiji si aysa ii dhicin laakiin candhuftiis dhib adaqaada haddii boqol lagu dhiji candhuf waxba dhib malaa mut markaasna lacagta aad u baahan tahay habeenkii waxaad tiri fanaan baa la waayey maxaa dhacay fanaaniintii maya fanaaniintii waxa laga wacay shelton marka meeshii ay ka heesi jireen baa habeenkaasi waxa laga waayey qof ka heesa iyagana shaqo kale aadeen meeshaan ka heeso habeenkii heestii hodmana meesha ka qaaday markaasaa heestii wallaahi aan bigusha horta leefa maanta fan maba jiro horta waxa waaye waa wixii waa iska duubiyin afka lagala qaadaa ma garat laakiinse heeskii markaan qaada waa bamgusha ilina igu socota heeska aad halkaa ka qaaday adoon fanaan ahayn ciddii iska lahayd heeska bal intaas noo sheeg intaas aan ka heesta ugu muhiimsan hata qaybta ugu muhiimsan aan ka soo qaado ileen hooy kuma bogsiiso hamigu warwarka ma bi'iyo halaacal wax ku ma keene adduun howli kama dhamaate waa lagu la horina ma garat waata yaa iska lahaa heeskaasi waxaa iska lahay kule wixii laa maqaan laakiin aniga nuur eebo ku maq laakiin hore waxaa iska lahaa baashi kuley faaninta hore iskale kule waata heesta waad xifdisanayd saas darteeda habeenkii meesha uga qaaday kadib goormaad fanaan rasmiya noqotay oo aad maslax soo istaagtay oo heeso laguu qorayo aad fanaan noqotay aan leeyahay oon qaado oo ii sameeyey abwaan da'yar oo liyaa shaciib cabdinuur laxankan uu saaray ijini shumi muusigan uu tumay xasan xujeer cajami nairobi baa markaa joog heestii kuugu horreysay oo aad abwaan kuu sameeyey maad xasuusan kartaa iidli xiisaha kalgacal miduu igu xidho ixanibay darteede xididada jirkiyo xiskiyo wadnaa way xambaarsato xuban qaali iyo qalbigee xado xaggeedan jira
يا سلام واتهي إلا وحا لغو حانتا إناد قادد هيساها كوبيغا oo ay yar yihiin heesaha aad adiga leedahay oo midhaheeda adiga lagu curiyey dadka qaar waxay dhahaan ila waxaanu jeclayn inuu heesaha lacag ku bixiyo ee samayntooda saas darteedu heese iska diyaarsanaa intuu xiftiyo u qaadaa arrintaas maxaa ka jira ila heesaha koobiga intuu lacag ku bixiya ma garat laakiinse heesaha koobiga aan leeyahay heesaha koobiga heesaha aan leeyahay heesaan leeyahay badan waad maxaad u jeceshahay laakiin inaad heesahaasi qaadid lacagna inaad ku bixisaad ii sheegtay iidli heesaha xigmada leen waxaad socda xigmad malaan one time news la sababta hadda heesaha had socda fiiri waa la xiisana xooga marka xiiso kid waa laga xiiso dhaca laakiin fiiri laakiin dan kula fiiri kaiska weynen inaad kali wax gaara tahay haska dhigin walaale waydaado inay yahay walaga wareerayo isla weynidaadada waxaad tahay ma sheegte adigu waya araga noqon erkaha isku waabine hadbaa waaga joogaad natiin walaalo weji lacaaga bay dumar wacadkabaa ku iibshaan waa tahay waa heesihii hore marka waxaad leedahay hadda heesaha jira iyo murti badan kuma jirto raabka maxaad ka aaminsan tahay iidlu raabka murtiba maxaad ka aaminsan tahay wallaahi raabka dadna murti aanu ugu heesan laakiinse inkastoo caay u badan yahay hadda maanta haddaan raab aan qaadayo aroos maan raabka qaadi karani marka raabka wuxuu u badan yahay caay iyo waxaas u sii badan yahay qaarna waxay u isticmaalaan wadaniyad ahaan iyo laakiin waxaa arkaysaa maanta isku dhaaranayaano hebel may gaarta hebel waxaasoo kale kuwaas wallaahi ma fahmi karin marka ile adiga fanka heerkii aad rabta ma ka gaadhay mase weli waxbaa kuu dhiman wallaahi aniga waxa waaye fanka awalo biilen karaadina biilkii waa ka hela makal ilmaha iskoolkoodiiyo marka waad imisaad ka samaysaa ilow wax lacag intee leeg baad ka samaysaa fanka habeenkan shaqeeyo kale adigu waxaan qaataa $100,000 adigu waa $1,000 heesta ugu dambayso aad adigo leedahay aad nooga tegi lahayd hodane xubigeygiye xubkii wadnahaygiye xumbada dhiigeygiye miyaan hodane ku xooli karaa xaqiiq adiga xishood mudano xurmiyo xila iyo xalaal ku habboon taasaan jeclahay